fadhigii 12 ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo shir gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu ansixiyay xeerka shaqaalaha rayidka ee sumadiisu tahay 31 lana unkay sanadii 2004 kaasoo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa cod gacantaaga geliyay ansixinta xeerka shaqaalaha rayidka ah xeerkan la yiraahdo kaabista iyo wax ka bedelka xeerka shaqaalaha rayidka ah oo hore u jiray 2004 kii la sameeyay waxna laga bedelay waxna la kaabay sida imika uu yahay maanta aan ku dhamaanay muddo dheer ka bacdi inaynu ku ogolaano inta ogol gacanta taagto dejiya yaa ka aamusay yaa diidan waa la isku wada raacay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu sharaxaad ka bixiyay xeerka shaqaalaha rayidka ah ee golaha wasiirada Somaliland codka aqlabiyadda ay ku ansixiyeen iyo qodobada ku jira ee faa'iidada ugu fadhiya qaranka Jamhuuriyadda Somaliland in la helo dhul guriga looga dhisi doono shaqaalaha iyo ciidamada dawladda qodobka wuxuu inoo sheegtay wasaaradda hawlaha guud in dhulka la helayo oo gobolada badankooda laga hayo qaar laga doonayo waxaan u xirsaarey wasaaradda hawlaha guud oo dhulka qaabilsanay inay dhulkaas soo diyaariso maab ahaan iyo coordinationkeeda gobol walba iyo magaalo walba wasaaradda arrimaha guuduna fuliso in dhulka loo kaydiyo shaqaalaha iyo ciidamada gobol kasta iyadoo u maraysa barasaabada iyo meerada arrintaas in muddo gaaban lagu soo ay ku dhamaato ka bacdina waxaanu geli mashruucaha sidee lacag loogu heliyo guriga loogu dhiso wixii la bilaabo waa la helaa insha Allah waynu helitaana golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Somaliland fadhigoodan waxa loogu qaybiyay oo ay kaga doodeen xeerarka ilaalinta xuquuqda carruurta iyo maalgashiga madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda labadan xeer ay leeyihiin iyo sida ay u mudan tahay in kulamo dambe loogu ballamo si qoto dheer si loogu gorfeeyo loogana darso muhiimadda ay qaranka u leeyihiin iyo qodobada ku jira oo la isla meel dhigo xeerka ilaalinta xuquuqda carruurta waxaanu inala galay meelo badan oo aad iyo aad u adag oo carruurta aan abiyo hooyo lahayn markay weynaadaan ay qaan gaadhaan ay noloshii ijtimaaciga galaan dhibaato agtay sidee loo xalliya sheekhu in badan buu sharaxay shareecadii iyo halkay wax marisay dhaqankeennina waa garanaynaa iyo halka uu adeeg leeyahay waxay la tahay qodobkaa dib baynu uga saaraynaa sharcigaa dib baynu dhiganaynaa wuxuu u baahan yahay daraasado badan oo diini ah oo xeer ah oo dhaqan ah oo aqoon la isugu geeyo xeerka maalgashiga isaga doontiisa waxaanu bilaabaynaa haddii ilaahay idhaahdo shirka dambe